guracan ee madaxda qaranka yani madaxda qaranka damaca guracan oo ay leeyihiin dartiis baa doorasho u dhici weyday markii damacu guracnaa ay yeesheen bayinaa waxa ay dhashay inay doorashadii corruption garayaan oo ay musuqaan oo ay halleeyaan marka waqtiga hadday tahay guddiyada hadday tahay farsamada hadday tahay wixii lagu heshiiyey oo aan la raacin hadday tahay waxaas oo dhan waxa ay u samaynayaan waxa weeye yani waa damacaas mataqaanaa guracan ay leeyihiin nimanka madaxda qaranka oo ama talada dalka hadda saamaynta ku leh oo ugu horeeyo maxamed farmaajo uu ku xigo maxamed xuseen rooble ayna ku jiraan nimanka shanta ee maamul goboleedyada madaxda u ah marka damacaas xun dartiis baa doorasho waddanka uga dhici weyday haddii damacaas meesha ka baxo ama damacaas yani laga hormariyo danta guud haddii qofka damac uu yeelan karaa damac siyaasadeed uu ku jiri karaa laakiin yani heer baa la rabaa inuu joogo yani inuu waasho oo damacii uu mataqaanaa dantii ummadda iyo dantii dalka iyo jiritaankii soomaaliya damac qof inuu halis u galo ma aha damac doqonmiima inuu gaaro lama rabo marka yani qofku inuu han siyaasadeed yeesho oo xil raadiyo dabcan waa wax caadi ah weye wax mushkilad ama leh laakiin waxaa mushkilad leh in damacii iyo doonistii qofka siyaasiga ahayd ay galaafato dalkii iyo dadkii marka aniga waxay la tahay soomaaliya waxa ay doorasho uga dhici weyday haddeerna u indhaxun tahay waa damac